TikTok-gayga waxaa laga bixiyay hawada. Tusaale wiil ama gabar mid koo noqdayba qof baa TikTok-gayga hawada ka bixiyay ama dad isku tag haddii ay yihiin muddo 24 saac gudahooda haddii TikTok aad la xiriirto account-ado dhan waa isku wada mid hadduu yahay YouTube hadduu yahay TikTok hadduu yahay Facebook waxa aad muhiim u ah 24 saac gudahooda inaad falcelin samayso meesha kala xiriiri lahaydna ciwaano fara badan la helayo oo laga la xiriiro inaad la xiriirtid 24 saac gudahooda sida aan u maleynayana muxuu ahaa inta badan account-ada aanan dib loo soo celin waxa ku imaataa qofkii account-kii hawada ma laga saaray mid cusub iska sameeyay inuu qofku iska dhaho bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu daawadayaal bulshada Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan waxay idin leenahay ku soo dhawaada channel-kiina xiisaha wararka family xiisaha wararkana waxay idin leenahay caafimaad ku waara goor dhaweyd waxaa muuqaal soo dhigay bartiisa YouTube-ka Babajey runtii waxa uu xaqiijiyay oo uu sheegay in TikTok-giisa hawada laga saaray runtii waxay ka mid ahayd waxyaabihii muddooyinkii ugu dambeeyay aan ka digaynay in qof walaal ah oo Soomaaliyeed wuxuu intaa ku tiiri tacabeelay waqti soo geliyay inay aad muxuu ahaa u xun tahay loogana qurux badan yahay inaa wixiisii hawada ka saarto marka Babajey inkastoo muxuu ahaa sheeg arrimo badan oo muujinayo social media iyo waxyaabaha inta badan muxuu ahaa sheeg uu ku qaban jiray iyo dhinacyo fara badan asagoo soo baniga saacate bal intaanan arinka aan u guda galin aan wada daawano isaga oo ka hadlaya TikTok-giisa iyo hawada laga saaray dad aniga maanta report igu dhuftay waxay report ku dhufteen TikTok-gayga waxaa laga bixiyay hawada oo yaraan 700 TikTok-gayga ku dhawaa waa isaga baashaal jiray waxyaabo comedy aan ku soo gudbin jiray qof binaadam kuma dhibaatay jirin qof binaadam duud kama sameyneenin kaliya wixii maskaxdeeda ku soo dhaco oo aan isdhihi karo dadkan kaga qosolsiin kartaa aan ku soo gudbinayo TikTok-gayga waxaa laga bixiyay hawada. Tusaale wiil ama gabar mid koo noqdayba qof baa TikTok-gayga hawada ka bixiyay ama dad isku tag haddii ay yihiin kaasi wuxuu ahaa Babajey oo ka hadlayay TikTok-giisa oo goor dhaweyd oo caawa hawada laga saaray runtiina aad baa looga qurux badan yahay hase ahaatee marka TikTok-ga fariinta hadda uu soo bandhigay uu soo qorayo waxaa jiro qaabab muxuu ahaa horta problemka waxa uu ka imaanayaa inta badan unfollow ama muxuu ahaa sheeg marka ay kala laabanayaan bulshada sidaan ognahay waayii ugu dambeeyay weeraraha jira marka lagala laabanayo TikTok-ga haddii uu arko in macnaha dad fara badan ay muxuu ahaa wixii kala laabteen shakiya galayo maadaama inta badan anaga waxyaabaha aan muxuu ahaa baraha bulshada soo dhigno iska af Soomaali uu yahay muxuu ahaa inta badanna system ayaa maamulo howlaha reportka iyo waxyaabaha ku aadan kadib ayaa waxa baari doono dad bini aadana waxaa jira marka TikTok-ga marka la yiraahdo your TikTok was banned marka lagu yiraahdo inta badan marka problemku wuxuu kaga imaadaa reportka noocaas oo kala ah waxa kugu dhacayo waxa loo yaqaan community guideline marka uu kugu dhaco oo suspend lagu sameeyo TikTok account-kaaga waxa jiro meelo laga la xiriiro hase ahaatee meelaha laga la xiriiro inta badan waxa ka muhiimsan Soomaali waxa arkaysa TikTok way furanayaan telephone number oo inta badan ku xirayaan aaba furtid muxuma mar kale dib ugu laabo gudaha oo dib u sax email account Gmail ayaa loo baahan yahay marka TikTok-ga la joogo marka verify ku sameynaysid TikTok-gaaga waxa jiro fariin ku dhacayso dhinaca Gmail-ka kugu dhacayso oo lagu soo dirayo code-ka verification-ka email-kaas waxa qaybta hoose ku qoran oo lagu leeyahay haddii adigu aadan ahayn qofka fariintan soo diray la xiriir TikTok support center-ka waxa meesha hoose ku qoran email ama cinwaan muxuu ahaa sheeg aad ka heli kartid oo aad kala xiriiri kartid sidoo kale help center-ka TikTok marka aad tagtidna banned-ka suspendiga muxuu ahaa community guideline-ka iyo waxyaabo badan xalkooda horta halkaas laga helayaa sidoo kale waxa jira Gmail haddii muxuu ahaa sheeg TikTok la yiraahdo oo aan ka soo xiganay muxuu ahaa dad tutorial sameeyay oo TikTok aad ugu dhow ayagana waxay soo bandhigeen email
emailadaasna kulli ayaga naftirkooda waa lagala xiriiri karaa hadba cilada baabajeyna waa la wadaagi doonaa emailadaas haddii allaha awoodda uu qadaro balse dhibaatada inta badan inta isan kugu dhicin isku day marka ugu horeyso inaad muxuu ahaa ii sheeg informationkaaga buuxiso goobaha informationska aad ku buuxisay sida gmailka iyo waxa la midka ah hadhow waxay ka caawin doonaan in lagaala soo xiriiro oo fariin lagugu soo diro waayo inta badan telephone numberka fariin laguma soo diro code baa inta badan lagu soo diraa laakiin marka account-kaaga gmail uu ku xiran yahay gmailkaas ama waxaad ka heli kartaa ciwaan hore oo tiktok ay wax kugu soo direen codekaas allah ka dhige ama muxuu ahaa ii sheeg marka dhacdo ay kugu dhacdo ama community guidelines uu kugu dhaco suspendiga lagugu sameeyo xal iyo muxuu ahaa raad raac qolada tiktok ku aadan ayaad ka helaysaa laakiin hadiiba marka hore aadan wax gmail account kaaga gashan hadhow waxa kugu adkaanaysa qaabka ula xiriirto hadda xitaa wali marka suspend lagu sameeyo channelkaaga muddo 24 saac gudahooda hadii tiktok aad la xiriirto accountado dhan waa isku wada mid haduu yahay YouTube haduu yahay tiktok haduu yahay Facebook waxa aad muhiim u ah 24 saac gudahooda inaad falcelin sameyso meesha kala xiriiri lahaydna ciwaano fara badan la helayo oo laga la xiriiro inaad la xiriirtid 24 saac gudahooda sida aan u maleynayana muxuu ahaa inta badan accountada aanan dib loo soo celin waxa ku imaataa qofkii account-kii hawada ma laga saaray mid cusub iska sameysay inuu qofku iska dhaho laakiin qof walba haduu dadaalo 24 saac gudaheeda xiriir la sameeyo oo uu galo TikTok help center-ka halka account-kiisa cilada ku dhacday muxuu ahaa sheeg uu ogaan karaa oo fariimaha iyo messages-ka uu helay ama waxa uu soo muujinayo ilan ciladuhu isku mid maaha ciladuhu aad bay u fara badan yihiin marka cilada marka account-ka ku dhacday ee suspendiga lagugu sameeyay ama banned-ka lagugu sameeyay marka aad ogaatid la xiriir qaybta muxuu ay qusayso ciladaada supportiga xitaa muxuu ahaa sheeg meesha la TikTok support team-ka meesha laga xiriiri karo xitaa gmail-ka aan idin sheegayo marka aad gelisid TikTok-gaaga tagaysa manager si dhahaysa meeshaas waxaad ka arkaysaa email meel ay ku qoran tahay gmail ku qoran tahay ciwaankaaga meeshaas aad gelinaysaa haduusan kugu jirinna meeshaas ka baar telephone numberka hadii loo baahdo naftirkiisa meesha waa meesha aad gelin kartid hadii marka hore aad iska sameysatay manage-ka qaybta muxuu ahaa TikTok manage account-kaaga ayaad waxyaabaha qaarna ka bedeli kartaa si aad u hesho hadhow cilada kugu timaado TikTok-gaaga fariin ay kugu soo diraan intaas ayaan rabay inaan idin la wadaago tan iyo kulantideeni dambe sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.